safiirka Soomaaliland fadhiya dalkani Kenya Baasha Cawil Xaaji Cumar oo weli ku guda jira hawlihiisa shaqo ee kulamada kula qaadanayay hay'adaha safaaradaha mas'uuliyiinta Kenya iyo sidoo kale qaybaha bulshada Soomaaliland ee kala gedisan ee ka tirsan jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan dalkani Kenya ayaa casuumad harimo sharafeeda u sameeyay ardayda ka tirsan jaaliyadda Soomaaliland ee dalkan Kenya ee jaamacadaha kala gedisan ka barta magaalada Nairobi. safiirka ayaa kulankan waxa ku wehelinayay safiirkii hore Soomaaliland fadhiya dalkan Kenya ahna ergeyga gaarka ah ee Soomaaliland u qaabilsan East Africa Community Abdullahi Abdi Cali Dakar iyo sidoo kale safiir ku-xigeenka Soomaaliland fadhiya dalkani Kenya ayaan la salaadiiriyay. kulankan ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha ka barata waxaana sidoo kale kulankaasi hadallo kooban ka soo jeediyay safiirkii hore Soomaaliland fadhiya dalkani Kenya Abdullahi Abdi Cali iyo sidoo kale safiir ku-xigeenka ayaan la salaadiiriyay. waxaana ugu dambeyn halkaasi ardaydii kulankan isugu timi kala hadlay hadallo wacyigelin iyo isugu jira dardaaranna uga soo jeediyay safiirka Soomaaliland fadhiya dalkani Kenya Baasha Cawil Xaaji Cumar. anagoo ah dhalinyarada jaaliyadda Soomaaliland ee ku nool Kenya gaar ahaan Nairobi waxaa farxad weyn inoo ambassador ina halka noogu timaado waxaanan kugu soo dhaweynaynaa madashaadii xafiiskaagii iyo halkaad shaqada ku leedahay anagoo ku noqon doona haddii Ilaahay yiraahdo garbiyaad ku duulilad marka ambassador soo dhawow. horta Ilaahay waa mahad iska leh madashan maanta suukan keenay safiirkeena qaaliga Baasha Cawil Cumar Ilaahay khayr ha siiyo iyo safiirkeena hore isagana aad baan soo dhaweynay kansalarkeenaba aad baan soo dhaweynay dhalinyarta ma taqaan ka soo qayb gashayba aad baan horta idin soo dhaweynaya safiirkeena waxaan u maleynayaa deyntii imika uu jooga dhaqdhaqaaqyadiisa wadalkiisa movementkiisa soo shaqeynayo dib ma taqaan dhaqdhaqaaqyada maandhood waxaan maleynayaa xafiiskiisa waxa la joogay aadan bare ducaale haddana shalaytu wuxuu la joogay waa wasiirka caafimaadka kule dhaqdhaqaaqyadiisa iyo movementkiisa ma taqaan waan arkayna dib ma taqaan soo ma taqaan shaqeynayo safiirku wuxuu nooga baahan yahay inaan la shaqeyno qaabkii la shaqeynahay dib ma taqaan saan ugu garab istaagi lahayn hawlaha dadaalka uu soo ma taqaan ka soo gaarsiiyay horta waa waxaan u baahanahay dib ma taqaan wax lagu farxo weeyaan. adiga waxaan kugu soo dhaweynaynaa wadanka Kenya in Ilaahay shaqada culus kula garaqbato waan ognahay shaqooyinkii kale muhiimka ah ee waaweynaa ee dalkeeni wax u taray iyo dadkiiba ee aad ka soo qabatay Soomaaliland intii aad Imaaraadka u joogtay waxaan kaloo mahadcelin lagu soo jeedinayaa safiirkeenii hore ee Soomaaliland mudan Abdullahi oo isaguna shaqooyin kale wanaagsan soo qabtay runtii xafiiskan Soomaaliland ee Kenya marxalado badan buu soo maray hadduu baan meeshu ugu wanaagsaneed maraya haddii Ilaahay ka dhigo aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa runtii ka safaarad ahaan inaynu maanta is aragno aad soo ajiibtaan kulankeenan aynu isugu imanayno aynu isku baranayno koleyba xafladan hadalka intiisa badan waxaan u dayin doonaa odayga safiirkeena oo aynu xafladan u sameynay dhalinyaradana aynu isku baraynay isaga ayaan hadalka u daynayaa laakiin waxaan jecelahay inaan idin sheego kulamadan aynu isku arkaynaa waa kulamada aanu doonayno inaanu bulshadii Nairobi joogtay aanu kula kulano qaybaheeda kala duwan haday tahay dhalinyarada haday tahay dadka waxbarta haday tahay dadka ka shaqeeya hadii ay tahay odayada kale kuwa ganacsiga marka kulamadii way noo socdaan kana qayb buu ka mid yahay dhalinyaradiina hadda halkan joogta waxbarashada u yimi waxa fiican inaad yaani targetkiinu noqdo yarba jooga la yiraahdo Dr. Cilmi mootina taqaaniin Dr. Cilmi wuxuu ka yimi Soomaaliland isagoo yaro waxba garanay uu soo dadaalay aad buu dadaalay wuxuu maanta noqday ninka ugu fiican East Africa haddii aad eegtid xagga professionkiisii uu ka gudbay wuxuu noqday professional doctor wiilaba wuxuu tagay ilaa South Sudan ilaa Congo marka dhalinyaradiina hadda halkan u timi waa inaad iska ilaalisaan social evilska baalahan qaadka xun iyo waxa nolosha xun leh ee hadhowta mustaqbalkiina hog kureedaya runtii wuxuu noqonayaa maanta waa bilow waa isbarasho waxa aynu doonaynaa kulankan kulanka xiga kadib iyo waqtiyada dambe kadib inaynu ka wada hadallo aynu aaraahis weydaarsano qaabka inuu wada shaqeyn karayno qaabka waxtarkiina iyo waxa nagu soo kordhin karaysaan iyo wixii talooyina taladu anagu intaan hayno ma aha idinkuna wax badan baa ogtihiin waxa ogtihiin nagu dhaantaan inaan noo sheegtaan oo nagu soo gudbisaan inaynu forum samaysano aynu ku wada xidhiidho idinka laftirkiinu is habaysaan oo guddi samaysataan guddida laftirkeeda aan noqoto guddida iska kaligeed shaqaysan ay noqonay guddida safaaradii la shaqayso oo aynu wada shaqeyno. Abdullahi Abdi Cali warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Nairobi.